midowday Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1960 kowdii Julaay 22 sano kadib Israaciil Soomaalida koonfur iyo waqooyi waxa magaalada Burco lagaga dhawaaqay in Somaliland madax banaanideedii la soo noqotay ayaa halka wax ka dhacay rasaas aad fara badan iyo madaafiic anigu stuudiyaha ku jiray ilmahan garanay waxa uu dhacaya waxaan dhameeyay hadalkan aan sheegayo inuu wax kale iyo fadqalada kale inay dhacday baan moodayay loo damaashadayo ku dhawaaqista marka ma filay haddaba su'aashu waxay tahay maxaa sababay in Somaliland dib uga noqoto midnimadii in ay leedahay baga dareenkeedu yahay baga dugsigii baarlamaanka iyo dekedii xamar baale berberadaad ma qaado dooniyaan ku leexan hadda aduuma dadkeedu dubaydii baarlamaanka ay danteena laba diiday labada kala daayay oo yaan loo deeyma lahaan kolka xigtu shanta gees saasay ahayd Djibouti Soomaaliya Ethiopia NFD Soomaaliya iyo Soomaaliland shantaas oo xigtu maxay ka tirsanayaan reer Somaliland dawladihii rayidka iyo tii militariga ee xilligii midowga soo xukumayay dawladii Soomaaliyeed dadaan afartankeegii dil baa lagu xukumay laga reebo aniga iyo saddexina ma kala umma dumarkii dibadda u baxaana waa qayliyay aniga qoriga iga bixiyaan ka ah kolka qoriga iga bixiyaan kiciyaan sida qoriga u qabto yaan laf bay wada ninkii baa sariirta ku qoriga gacantayda galay 23 sano oo ay maanta jirta maxaa u qabsoomay Somaliland hantida ugu weyn ee Somaliland amba hantida haysto amba kaydka haysto waa laba shay mid waa nabadgelyada koow waxaad oo aan idin tafsiir karin oo qabsoomay waxa uu qabsoomay in dunida fenomena cusub ku soo kordhisay الدنيا ولي خاصة دول أفريقيا دول أفريقيا أو شقيقية أو الصعودة أو مامي كيس الدول النمو وهرمر كيس أو أنا العالم جامعة ولا ما تقول لا تجامعة ولا هاي مين الهجر أنتي وهرمر وين حاجة دقالة ذاك السوق هذا مجال عندي هرجس تورة بهاي ما أنت بسون قلنا ما بيجرين به والخال على سين مجال يرسخ لا به ما أنت نديم مجال وين Somaliland hadda xagay ku socotaa marxaladda ay hadda joogto halkay uga sii dhaqaaqi doontaa waa saadaasha Somaliland iyo sanadaha soo socda Somaliland way dhismaysaa Somaliland waxay noqonaysaa qaran Somaliland dawladnimadeedu way ku adag tahay ilaa inta ay dawladdu aqbalaysana Somaliland way jiraysaa haweeneydu soo aqoonsanay inuu yahay waaqic jira oo ka samaysan geeska Afrika oo khuseeya nabadgelyadiisa fiditaanka AIDS-ka xakamaynta burcadbadeeda iyo argagixisada waana dhabtaasi oo dalbeen xuduud la leenahay la'aanteen waxa la yiraahdo waxay samayn karaan ma jirto waynu aragnaa maanta xornimo iyo ictiraaf la nasiiyaa garanti kama aha horumar ay u gaadho sababtoo ah eeg tusaale waxay nooga South Sudan oo kale xornimo ay qaateen adduunyada oo dhan baa ka soo shaqeysay wadamo reer galbeedku joodiga Ingiriiska in South Sudan ay xornimadeeda hesho iyo pressure-ka saareen dawladda Sudan loo jiray ama North-ka way kala go'een waa kuwa maanta madax isku jiray istilaya ee xasuuqay isku baa Somaliland amaanka uu sugay oo yaa sugay marka waxa sugay taariikhda gudaha waxa sugay nidaamkii booliiska baa joogay maxkamadii baa joogay suuq baa joogay macnaheedu institutionskii dawladda sirdoonka qaranka jira ayaa sugan tii dibadana waxa sugay ciidamada militariga kala soco Kalson TV waqtiyada soo socda barnaamij koobsanaya dhacdooyin badan bandhiga bayaan